hal fariin baan doonayaa dawladda Soomaaliyeed inaan idhaahdo xitaa Cabdikariim Sheekh Muuse oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka mid ahaa ciidamadii commandos ee sida dharcadka ah u galay magaalada Goday kadib markay adkaatay 1977 in ciidamadii caadiga ahay wax ka qabtaan ma aha kaliya inaad dhiibteen ee xogaha aan helayno waxa ka mid ah intaad garaacdeen tikreega iminka haya nabarrada ku dhufateen oo iminka ka daaweynaya baan ognahay arrinku sidaad moodaysaa Soomaali aad iyo aad buu u weeyay walaalayaal ninkan ale maanta maxaad ugu xoroobaysaa Itoobiya waxaan u leenahay ma qarnigan gumaysigii qiilka galayo quruumu xoroobeen kii qaybidin helay ha ka qaylinaba qarsoodii wuu dhammaaday kay qalloocna tahayo oo annagu guursidiinay qorraxdii xornimadii iyo qaranniman haleelayo annagu guursidiinay intahaan ka qabadaha qaar ka sara bannaan tahay taa kana qabyadu tahay qalabka waan sidaynaye kay qalloocna tahayo waynoo qori afkii naftii huraha dhaartiya halgamaaga dhiidheeya isagoon dhaqaaliya dhadhamiya anfaca rabin xabad soo dhacaysiya dhimbiilaha colaadee dhulka hooya awgii nafta dhiibay ee huray إن شاء الله جوش وان كيسو وحد نفسنا دونا لوكيسو حروبية جنة عند ماني وحن ديدنا هي ومرنا أن دونين دنا يستاهل شيء يدل لي يقوم يسيق داشن يدد كني وحن دار بدينا هو دور كجوجا إن دارينا بيتكود دب كنا نروح برسن دونا لليان إنت ويل كدارك يودك كنا جوجنا تقول أمن ما ينودك توقر يسار هي جديد ما ينقري ده down Ethiopia down down Ethiopia down down Ethiopia down down Ethiopia down Didi mayno gerida tufulaha gumaysigu intuu dani dagaladena hurda dahsan mayno dagta qoriguna suudhan Didi mayno gerida tufulaha gumaysigu intuu dani dagaladena hurda dahsan mayno dagta qoriguna suudhan dumarkii carruurtuna intay dalyihiinay dal shisheeye jooga hurda dahsan mayno dagta qoriguna suudhan dumarkii carruurtuna intay dalyihiinay dal shisheeye jooga hurda dahsan mayno dagta qoriguna suudhan dumarkii carruurtuna intay dalyihiinay dal shisheeye jooga hurda dahsan mayno dagta qoriguna suudhan dumarkii carruurtuna intay dalyihiinay dal shisheeye jooga hurda dahsan mayno dagta qoriguna suudhan kuwa duurka jooga danta guud ilaash dadka noo xambaarsan intay duulayaan dagta qoriguna suudhan intay duulayaan dagta qoriguna suudhan ka jooge danta guud ilaasha dadka noo xambaarsan intay duulayaan dagta qoriguna suudhan intay duulayaan dagta qoriguna suudhan hal arrin baan xusuusinayaa caam ahaan dadka Soomaaliyeed khaasatan ummadda islaamka ee Soomaalida nothing wax ka yarna maaha wax ka badanna maaha inay dad islaam ah oo Abyssinia 1884 qaybsigii Afrika wixii ka dambeeyay 3 sanadood kadib ayay Itoobiya qabsatay magaalada Herar oo ahayd caasimadda islaamka ee East iyo Central Africa hadda taariikhda socotaan 26 January 1887 bay qabsatay maalintaas dadka taariikhda qoraa waxay yiraahdaan waxay ku dishay 4000 oo qof bay ku dishay waxaan idin sheegayaa maalinka maanta waa 130 sanadood ka hor baan ka hadlaynaa masaajidkii islaamku lahaa ee 70 imaam oo islaami ay isaga dambeeyeen sheekhi ugu dambeeyeen Sheekh Cabdalla la dhihi jiray يا ما أنت إسقى أو من نار الدل أيو إثيوبيا كنيسة دويا وإنا نفهمنا كورك ماشى لقى حيستو تذكر الإسلام كي جالس كأفريقيا إن حقيقة وسود هذا جام بيوبهاي أناقو مركا الله هاي
dadka Soomaaliyeed Itoobiya ku hoos noolaa cid kasta Itoobiya anaga ka naqaan haddaad runta doonaysaan wallahi Itoobiya anaga cid kasta ka naqaan waxaan ku dhashay meel heer u jirta 200 kilomitir first grade waxaan ka bilaabay dugsiga hoose dhexe Yaaqshid magaalada Muqdisho nin iga yaqaana oo iga jecel Soomaalinimada ma jiro I know waxa qiimaha ay leedahay inaan Soomaali proud ahaado waxaan idin sheegayaa markii la qaxay dugsiga sare Janada u bandhiganay dreamkay wuxuu ahaa inaan sarkaal Soomaaliyeed oo askari aan noqdo wallahi didi mayno geerida dad fulaha gumaysigu intuu dooni dagaladeen hurda deexsan mayno dadka qorigu noosur didi mayno geerida dad fulaha gumaysigu intuu dooni dagaladeen hurda deexsan mayno dadka qorigu noosur maanta waxaan filayaa halka dhowr arrimood baynu isugu nimid number 1 waa inaynu sii wadno culayska aynu ku hayno dawladda Soomaaliyeed ee 6 bilood ka hor aan dooranay oo mas'uulka ka yahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo prime ministerna uu ka yahay ninka la yiraahdo maxay ahayd khayr waxaad ku dhacdeeni waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed baa ka jawaabay dhibaatada aad geysateen inta ay la eg tahay dadka Soomaaliyeed ee meel kasta jooga ama sideenoo kale ay isugu yimaadeen ama maxay ahayday social media iyo aaladaha shacabku ka xidhiidha iyo TV-yada waxa soo fadhiisteen dadka Soomaaliyeed baa ka jawaabay jariimada aad geysateen حتى هل أرين أوغادا عبد الكريم شيخ موسى وحوها سركال كتيرسن قيبتكم يلا باتنا نعيدك عقدك الصوماليين وصل نجاد وها بقالة النص مريب حدي حتى سيدا إياه وحو قيبيان لو قيبيو 4.5 كلا يدقو مدحوينها إيا خير إيا كوا الله متكيبا وحي كسو جيدان ديانك عبد الكريم سيغو دفاع يوون انت أرنتها أوغادا ورقين ياليهم